weli ma isweydiisay sida nalkan guryaha loo isticmaalo oo u shaqeeyo iyo gudihiisa wax ku jira? bal ila fiiri. kan waa LED-yaashii. LED-yaashana meeshaan ayaa lagu dhejinayaa. haddii aan meeshaan fiirino waxaa ku jira chip kaasoo magaciisa la dhahayo CS1616AF inta kaastaa jidkiisi waa ka waayay internetka. marka waxaan sameynaa waxa waaye concept ahaan siduu u shaqeynayaan sharaxaya. schematic haddaan fiirino concept ahaan wuxuu ka samaysan yahay, wuxuu isticmaalayaa wax la dhahayo buck converter. buck converter wuxuu sameynaa waxa waaye voltage sare ayuu hoos u dhigayaa. midka kale tuu sameynayana waxa waaye LED-gu wuxuu u baahan yahay constant current wax la dhahayo, qulqul aan isbeddelayna u baahan yahay si uu iftiinka wax maanta noogu hayo sidoo ah. haddii qulqulku isbeddelo iftiinku wax waaye dheeraana marna uu gaabsamaya. marka labadan fiil haddaan fiirino, labadan fiil oo soo galaya waaye. kadib waxaa ku dhegan laba cadaadis mase laba resistor. labadaasna waxaa loogu talagalay kasaa'idka ee u celiyaan. halkan haddaan fiirino waxaa ku dhegan wax la dhahayo bridge rectifier, kuwaasoo loogu talagalay AC voltageka inta soo galaya oo guriga korontadiisa ah ayuu wuxuu u beddelayaa DC. marka 230 volt markuu soo galo halkan waxaan helaynaa ugu badnaan 320 qiyaastii. kadib waxaan ku dhejinaynaa capacitor. isbeddelkaas wuu yaraynayaa, voltageka side ma u dhacayo. marka AC-gu saan u egyahay saana u beddelaynaa. kadib waxaa isticmaalaynaa kan oo buck converter-han ah. buck converter wuxuu sameynaa waxa voltagekan side-ka ayuu hoos u dhigayaa. hadda inta waxaan ogaanay 8 LED inuu ku dhegan yahay. waxaan leenahay qiyaas ahaan 3 volt camal ay isticmaalayaan LED-yaashan. 3 markii lagu dhifto 8 waxaan haysanaa 24 volt. gudahoodana waxaa ku jira chip ku jira. chip gudaha ku jira isaguna wuxuu u baahan yahay switch-kan ayuu kana xakumaya. kana hadda ka hadlaynay kaasaa xakumaya. marka switch-ka markuu xakumo waxaa dhacaya 50 volt camal helina. 50 volt markaan helno kadib qulqulka inta marayana waxa LED-yaashan haddii la fiiriyo 500 milli ampere u baahan yihiin laga yaabaa. marka wuxuu kala hubsanaa waxa waaye 500 milli ampere ayuu hubsanaa halkaasina haysano. marka sidoo ku shaqeynaysaas waaye buck converter-han isticmaalaya voltageka hoos u dhigaynaa kadibna qulqulka oo aan wax ka dhigaynaa constant. marka siyaabo badan ayaa loo sameeyaa, laakiin kan hadda oo buck converter marka la isticmaalayo waxaa la yiraahdaa switch mode power supply. waxa waaye efficient waaye, macnahuna waxa laga wadaa wuxuu sameynaa waxa waaye powerkii ma khasaarinayo. marka haddaan fiirno mid walba midku yahay hadda qiyaas ahaan capacitor-kan waa kan, inductor-kanna meesha noo yeelana waa midkan, labadii resistor-na waa inii sheegay waa kuwan, bridge rectifier-kiina waa kana. waxaa kale ku dhegan diode-yaal meeshan oo ku dhegan yihiin waa midkan. halkan haddaan fiirsino waxaa ku dhegan MOSFET-kan, kaas waxa waaye switch-kaas aan u sawiray iyo kuwo kaleeto badan. kuwaas badan waxaa laga yaabaa in loogu talagalay wax la dhahayo feedback markii la sameynayo mase markii la cabirayo qulqulka la rabo in la ogaado meesha baxaya. marka qulqulka camal in lagu xisaabsado iyo filter capacitor wax la dhahayo. kuwaasna waxaa loogu talagalay sidaan voltagekan aan filtration ugu sameyno. marka sidoo ku shaqeynaysaas waaye. marka intaas baan rabay inaan la qaybsado. Assalaamu calaykum.